بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa marqaati TV kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka qaybta labaad oo aynu si gaara ugu eegi doonno wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada muqdisho iyo dagaaladii ka dhacay magaalada aynu ku bilowno waxaa maanta degan gebi ahaanba magaalada muqdisho ee caasimadda dalka halkaas oo shalay iyo xalay ay ka dhaceen dagaallo culus oo u dhexeeyay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa mucaaradka waxaana dagaaladaasi ay sababeen in magaalada ay geliyaan qalqal amni oo aad u xoogan waxaana sidoo kale magaalada meelaha qaar ka bilowday in dadka shacabka ah ay isaga barakacaan si mar kale dushooda aan loogu dul dagaalamin haddii aynu ku hormarno aagaggii shalayto lagu dagaalamay ee waqooyiga muqdisho iyo dhanka koonfurtaba xaalad ahaan aad ayay u degan tahay waxaana dib u soo laabtay isu socodkii gaadiidka iyo dadweynaha iyada oo ciidamada mucaaradkana weli ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah aagaggii shalayto ilaa xalay ay ku sugnaayeen markii aynu eegno dhinaca isgoosyada Sanca iyo Mirnaayo waxaa la soo sheegayaa in xaaladdu ay tahay mid caadi ah oo gaadiidka dadweynaha ay bilaabeen halkaasi si caadi ah inay u isticmaalaan iyada oo difaacyana ay sameysteen ciidamada mucaaradka ah sidoo kalena marka aynu eegno dhinaca wadada Cabdiqaasim oo xalay dagaalkii ugu xoogana uu ka dhacay iyana si caadi ah ayay dadka u marayaan laakiinse ciidamada mucaaradka ee taageersan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa lagu soo waramayaa inay halkaasi difaacyo ka dhigteen waxaana laamiga ay ku jireen carar fara badan ama waxa ay sameysteen carar tuur dadka shacabka ayaa gaadiidka uga soo degaya markii ay kasoo gudbaan dhanka Tarabuunka waxaana halkaas ay ku soo marayaan lug iyaga ilaa iyo kilomitir 4 soo lugeynaya sidoo kalena waxaanan jirin gebi ahaanba goobihii waxbarashada oo iyagu albaabada loo laabay sababo ammaan awgeed waxaana sidoo kale fariimo loo diray dhammaan ardayda dhigata jaamacadaha oo loo sheegay in ilaa iyo amar dambe fasax ay yihiin taasi waxa ay ka dambeysay dagaaladii dhacay haddaba mid ka mid ah saraakiisha ee mucaaradka hogaaminaysa kana tirsan ciidanka xoogga dalka waxa uu sheegayaa in dagaalkan ay wadi doonaan inta madaxweyne Farmaajo uu ka tanaasuli doono ama uu ka noqon doono muddo kororsiga 2 sano waa sida uu hadalka u dhigay gaashaan la sare Cabdulqaadir Maxamed Warsame oo ka howlgalay aniga iyo saraakiil kale oo boolis iyo military iyo nabad sugid intaba isugu jirta oo ujeedkoodu ahay madaxweynihii hore oo waqtigiisu dhamaaday oo dadka iyo dalka inuu afgambiyo oo wuxuu ku jooga raba diidan oo ka soo horjeedno rabna inaan dadka ka dulqaadno oo ka howlgalna meeshaas la galab maqribkii ilaa hadda ku sugan joogna ka soo bilow dabka weheliye maxaa la dhihi jiray isaga ilaa sayidka maxaa la dhihi jiray isaga ilaa maxaa la shanta geed isgoyska maxaa la dhihi jiray bakaaraha inta ka dhaxaysa annaga ku sugan waan wax aan sugayno ama hadda aan raadinayn ama hadda ka horna maqlay ama rabnaa ma jiraan dadka magaaladan waxaan loo in farmaajo iscaslo ama uu ka tanasulo labadii sano qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqaya dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Muqdisho in ay xabadda joojiyaan isla markaana miiska wada hadalka ay ku laabtaan waxaana sidoo kale shacabka ay dalbanayaan in aan dushooda lagu dul dagaalamin magaaladoodana aan la burburin maadaama magaalada waqti iyo qarash fara badan uu ku soo baxay mucaaradka si gaar ah waxaa looga dalbaday in ay dagaalada joojiyaan oo ay miiska wada hadalka ku laabtaan isla markaana kaliya ay awood ku heli karaan iyaga oo cadaadiya madaxweyne Farmaajo kuna cadaadiya in wada hadal uu ku yimaado isla markaana uu ka laabto muddada 2 sano ee loogu daray dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mr Roble isna si kooban ayuu u hadlay waxaana uu sheegay in aan loo dulqaadan karin dhibaatada ka taagan magaalada Muqdisho isaga oo shacabka u sheegay arintan in uu ka xun yahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinayay amniga iyo nabadda magaalada Muqdisho gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhooro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta
bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho dawladdu waxay aaminsan tahay in wada hadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada in aan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena gaar ahaan magaalada Muqdisho aad ayaad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq meelaha qaar xaafadaha magaalada Muqdisho waxaa ka maqan korontadii iyo biyihii taas waxa ay keentay in dadka ay guryahooda isaga soo barakacaan dagaal wiil kuma dhashee mid nool buu duugayaa waxaana loo baahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee labada dhinac u dagaalamaysa inay fikiraan aqligooda ay ka shaqeysiyaan isla markaana ay arkaan wadankan inuusan ahayn wadan kale uu yahay wadankooda ayna joojiyaan dagaalada ayna noqon xaabada dabka lagu horiyo maadaama cidda dhimanaysa ee xabadda isu dhigaysa iyaga ay yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran in ay u damqadaan dalkooda iyo dadkooda waxaana waajib weyn ka saaran inay ka qayb qaataan dib u dhiska wadanka haddii ay ahaan lahaayeen kuwa askarta iyo sidoo kale aqoon-yahanada kale ee jaamacadaha dhigta ama ka soo baxay intaba dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa xilligan waxa ay ku dhaliilan yihiin inay kaalin mug leh ka qaadanayaan colaadda isla markaana qaarkood ay qabaa'il ula kala safanayaan dhinacyada ishaya marka loo eego danta guud dhinacyada ishaya waxa ay raadinayaan kuraas iyo mansab waxa meesha ku baaba'aya waa hooyooyinka iyo carruurta sidaasi darteedna waxaa muhiim ah in laga wada hor joogsado cid walba oo doonaysa wadanka inay qalalaasa gelisa ha ahaato dawlad ama mucaarad haddaba daawade adigu waa maxay aragtidaada maxayse kula tahay xaaladda wadanka ka socda in lagu qaboojin karo fadlan aragtidaada oo asluubaysan qaybta hoose commentiga inoogu reeb adiga oo aan cidna u gafeen mahadsanid qaybta labaad ee barnaamijka falanqeynta xogta caalamka waa naga intaas insha Allah wixii ku soo kordha xaaladda guud ee wadanka gaar ahaan Muqdisho wararka iyo barnaamijyadeena dambe ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa nabadgelyo Ila